السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وهذا طاشتا وضيال كسر دوادا برنامج كي أحد لها أها أضنا غبرتين إن الميشن كسر دينو أو برنامج كوحو كسابسين هي أوتيزم كوحو هي إيو أرمها أوتيزم كا صدحنا قفوض أركيسان وانيقو هذا وأيان ومونا runtii saddexdeedu waa anagu manihiin dhakhaatiir laakiin waxaanu nahay dad la nool ciyaalka autismka qaba ama la soo shaqeeyey ama ku jira ama abaabulay ama abuuray organizationo ku saabsan autism group iyo waxyaabahaasi marka caawa waxaanu rabnaa keliya wixii aanu cilmi ama aanu u leenahay experience inaanu idinla qaybsanno maadaama autismkan uu kusoo batay communitygeena adduunka meel walba oo ilaa imka Soomaaliya laga sheegayo inaanu idinla wadaagno wixii tala iyo tusaale ah iyo wixii aanu ka baranay iyo wixii aanu aragnay hadday ciyaalkayga yihiin iyo hadday yihiin meelaha aanu kasoo shaqaynay ama dadkaanu la kulanno waxaan kusoo dhaweynayaa ayaan oo inooga warrami doonta autismka waxay sayniska dadka saynisku ka aaminsan yihiin ama ay ku arkeen calaamadaha lagu garto maanta heerkay ilmaheegii yaraa autismka lagu sheegay halku marayo halkay maanta ilmaheedu marayso iyo midkii ugu horeysay farqiga u dhaxeeya calaamadaha lagu garto wiilashiyo gabdhuhu say ku kala duwan yihiin ani xagga communicationkan ka sheekayn doonaa ama aan idin tusi doonaa qofka aan hadli karayni waxyaabaha lagula hadlo communicationada kala duwan Muna waxay inoo sharaxi doontaa say uga dabaalatay qisooyinkeedii ugu horeeyay markay autismkan la kulantay ilmaheedii yaraa lagu sheegay faasyadii ay soo martay iyo maanta halkay marayso iyo waxyaabaha ay kula telin lahayd communitygeena maadaamay ka shaqaysaba arrimahan ay ku dhex jirto marka qof walba khabiir ama wuxuu u yahay maxaa la dhahaa ma soo joogo u ahaa ama ilmihiisu la nool yahay baanu rabnaa inaanu idinla wadaagno iyo halka caawitaan laga heli karo qof walba waddanku degan yahay ayaan kusoo dhawow aad baan igu mahadsantihiin dadka adduunka dacaladiisa naga daawanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habla waa idin salaamay hodana aad baad u mahadsan tahay dawaabad soo sharaxday marka anigu personally intii aan ka barteen ka aqal aan bartay markii gabadheeda yar hadda waa 3 jir weeyaan hooyo walbana way og tahay horta dareen gooni hooyooyinku ay usually leeyihiin ay wax ku dareemaan wax ku arkaan markay xoogaa wax yar si ay yihiin marka taas raba inaan la wadaago horta waxaan rabay before everything else inaan ka hadalno autismku muxuu yahay dadkeenu inta badan waxay ku sheegaan xanuun maaha walaalo absolutely wax xanuuna maaha waxa weeyaan waa neurodevelopmental disorder wax la yiraahdo ma aha xanuun waa dad waa qof si kale isagu wuxuu arkaa sida adigu aragto buu ka duwan yahay soo arkayo maanta adigu hadaad colorka gray aragto laga yaabo isagu blue arko siro kala duwan baan wuxuu aragnaa laakiin dad xanuun qaba ama wax ka siihiin absolutely maaha waay dad badan ma arka ilmo xanuunsanayaan heersa inay iraahdaan markay ilmihiisu spectrumka autismka uu ku jiro ma aha walaalo ilmo xanuunsanaya waa ilmo spectrumka ku jira iyo ilmaan spectrumka ku jira weeyaan marka early signs-ku waxyaabaha calaamadaha ugu horeeya sanad markuu ilmuhu ma aragtay sanad leegyahay iyo markuu sanad ka yar yahay waxyaabaha ugu horeeya ka arkaysa waxa weeyaan rarely ama de ever ba hadduu eye contact ku sameynayo indhaha ma aragtay uu ku soo eegayo kuma soo eegayo indhihiisi kuma qabanayaan meelaha kale qabanayaan and usually markuu ilmuhu sanad leegyahay wuu hadaaqaa baan ugu af Soomaali rahnaa babal bala dhahdaa wuu hadaaqaa ilmahani autismka ku jira inta badan ma hadaaqaan waa mid hada qaarkood marka lan ka sheegi doonaa and calaamada kale waxa weeyaan ilmihii markuu sanad joogo magaciisa normally wuu garanayaa oo markaad hebelow ama heblaayo tidhaahdid wuu soo jeedsanayaa wuu ku soo eegayaa ilmahani spectrumka ku jira magaciisa kuma soo jeedsanayo adoo hor jooga markaad hebelow ama heblaayo tidhaahdid kuma ba soo eegayo and playtime kama aragtay toysyada qaarkood lagu ciyaarayo interest badan kuma laha and waxyaabaha qaarkood marka imika ay garab yaalaan iyo qofkii ilmahan spectrum ku jirin
qof markuu garab joogo iyo waxyaabaha qaarkood markay garab yaalo object garab yaalo usually qofka buu interest siiya ilmaha spectrumka ku jira interest qofka ma siiyo waxyaabahan kale objectada yar garab yaalo buu interest siiya ciyaalka qaarkood waxaa jirta inay language-kii develop garayaan oy marka hore hadalka loo yeerayo ay maqlaan language-kii develop garayaan hooyo aabbo kelmaday lahaadaan sidanly iyadoo socota markuu meelaha dhowr iyo 10 bilood gaadho 15 bilood 16 bilood wixii ilmihii isagoo caadi u eekaayo wax walba soo hadlayay uu joogsado stop absolutely he stops learning he lose everything markii horeba soo bartay wixii dhan uu ka joogsato taana waa calaamad ilmihii aad la hadlayso kuu soo jeedsanayo oo eye contact kula lahaayo hadaaqayo wax odhanayay oo markiiba ka joogsato taana waa calaamada aad u weyn markaaba inaad u fiirsatid ay tahay ciyaalkoo dhan maaha ciyaalada qaarkood waxay sameeyaan repetitive movements sibay imika especially imika madaxooda qaar kasaabay odhanayaan qaar farahanaysan odhanayaan gacmaha madaxa movement bay ku celcelinayaan qaarba sibay leeyihin qaar sidan ay yidhaahdaan qaar madaxaysan yidhaahdaan movement bay ku celcelinayaan repetitive movement calaamadaha kale usually laga arko oo 18 bilood markay gaadhaan ilaa 2 sanada u dhaxaysa interest-koogii baa limited noqonay for example gaari yar buu ka helayaa gaarigaa yar buu focus ku ahaanayaa wax kaloo dhan haddii loo soo iibiyo interest ma ku yeelanay kaasan buu ku yeelanaya interest marka very limited interest calaamadaha kale oo qaarkooda ah they are unable to engage social interactions inay social interaction la yeeshaan ama ilmihii ama qofkii kale garab joogay ma karaan iyago calaamadaha kaloo kale jirta waxa weeyaan unusual ways bay u move garayaan bay u dhaqdhaqaaqaan like stan sheegayay gacmaha fingerka afka ay si u furaan carabkay soo saaraan waa usually ilmo 2 sano ah waxyaabaha aanan spectrumka ku jirin waxyaaba aanu sameynayn iyo ilmahan kale u sameynayaan saas oo kale waxay calaamada kale ayaa jirta they're not interested in la ciyaaraan ciyaalka da'dooda ah absolutely playing with other children interest kulmale bubble-kiisa ayar buu iskaga jirayaa wixiisa ayar isagu limited interest-kiisa u lahaa object-kiisa hadduu imka wax istaba dhigdhigayaan oo kale waxaasunbuu ku dharay ilmo yar hadduu u yimaado la ciyaaro absolutely interest ma siinayo waxyaabaha kale marka ilmuhu 2 sano uu ka weyn yahay uu sameeyaan waxa weeyaan wuxuu ku celceliyaa repeat words iyo phrases kelmado iyo hadallo ku celceliyaa aad moodaysid inuu fahmayo laakiin absolutely ma fahmayo wax alle wuxuu ka fahmaya male wuu maqla wuu ku dhagow wuu ku celcelinayaa laakiin calaamado kale waxaa jira behavior problems ay leeyihiin like self injury oo kale in iyagu is dhibaateeyaan oo wax isla dhacaan oo madaxa meel ku dhufto markuu xanaaqo markuu ama uu qof kale dhaawaco maadaama uu ilmihii hadal li garanayn uu behaviorkiisii fahmayn una control garayn karayn ama isagaas dhaawaca ama wuxuu dhaawacaa qofka kale ta kale tani la xidhiidha difficulty inay control garayaan emotionskooga waxyaabaa qaar tantrumska la yidhaha tantrumsku hadda ciyaalkan spectrumkan ku jirin bal laftarkoogu way sameeyaan oo behavior problems un leh laakiin iyaga tantrumskoogu waa out of control ilmihii ma garanayo emotionskiisii si loo control garayo qaarkood hadday bilaabaanna 2 saacadood oo isku xigta bay ooyayaan qaylinayaan una joogsanayn even though haddii wixii uu rabay aad siisay ma joogsanayo because difficulty buu leeyahay inuu emotionkiisii control garayo mid kalena way jirtaa inay leeyihiin waxyaabaha qaarkood ay iyagu jecel yihiin they like just things a certain way like for example cuntadoo kale they like to eat the same foods hadday maanta weliba waxyaabaha qaraxa ka helaan furun yaroo qaraxa furunkaa uunbuu ku odhan mar walba isi ilmahaasi wax kale ma rabo inuu isku try gareeyo way dhibaysaa waxaa kaloo jirta calaamadaha kale ay jirtana waxa weeyaan inay intense reactions ku sameeyaan for example qayladoo kale soundskoo kale inay aad iyo aad ay u dhibto urta qaarkoodoo kale inay dhibsadaan dhadhanka qaarkoodoo kale inay dhibsadaan waxyaabaha maad aragtay textureka la taabanayo kale imika wixii hadduu qoqoyan yahay farahay ma la gelayaan oo way ka khashaafayaan camuudoo kale ciyaalku camuuda usually way jecel yihiin aan spectrumka ku jirin
iyo kuma jeclo oo waxyaabahaasoo kale because texturekaasaa dhibaya ciyaalka qaarkood waxaa dhibaa lightska hadduu ku badan yahay ama uu triigu saa indhaha uga qabto ama xitaa wax weynba triig weyn ahayn xoog buu u dhibaa codka xoog buu dhibaa qaarkood haddii codka xoog loogu yara qaado ama xoog bay ahayn sidaa iminka aad u hadlaysid haddaad codkaaga way dhibaysaayo dhegahays qabanayaan kalarada qaarkood xitaa way dhibtaa marka calaamadahaasoo dhan ba wallaahi ay jirtaa waxa kaloo saynsyada anigu aan differenceka aan arkay hablaha iyo nimadu aad bay u kala duwan yihiin habluhu way khabaystaan because social interaction ka badan bay inamada leeyihiin diagnosiska habluhuna kuma badno waxaana la diagnosis garayaa inta ugu badan very very late iyagoo waqti badan ay kasoo dhacdaba la diagnosisay because waxyaaba badan bay qarsadaan iyagu oo interaction bay leeyihiin sometimes hadalku way kaga horeeyaan haddana waxyaaba badan bay iyaga laftarkoodii calaamadaha leeyihiin laakiin way khabaystaan hooyadu waa markaan ku leeyahay hooyadu iyo waalidkuba aad bay muhiim ugu yihiin inay u fiirsadaan imika waxaa dhici kartaa inamadu waxay qaarkood ka helaan inay wax saa iska daba dhigdhigaan oo waxaa maanta oo dhan isaa u eegaan inta ugu badan habluhu male aniga personally inanteeda hadaan kasoo qaado 2 years bay ahayd ma lihiin absolutely all those signs ma lihiin habluhu waxay kaloo kaga duwan yihiin eye contact badan bay leeyihin indhaha toos bay kugu soo eegayaan kaama jeedinayaan indhaha waxyaabaha shakiga markaa aanad uga shakinin markay wax rabaan communicationkana way kaga fiican yihiin even haddayna verbal ahayn xitaa non verbal communicationka way kaga fiican yihiin oo markay wax rabaan way ku soo eegayaan waxyaabuhu dhakhtarku markuu eego ku odhanayo oh no ma aha spectrumka kuma jiro inantani kuma jirto laakiin waa speech delay hadalkiioo ka raagay iyo waxaasoo dhan laakiin waa inaad waalidku ula doontaa isagu xitaa hadduu mid ku yidhaahdo ma aha laba ma aha because the more aad la doonatid the more aad maaragtay aad maxay ahaydin ilmihii wax u qabanaysid science-kii haddii aan ka imaado waxaa jirta wax la yidhaahdo early intervention marka ilmihii diagnosiska loo soo helo ood kula dadaashid hore intuu 2 sano dhaafin uu 3 sano u dhexeeyo ama 3 sano unu kugu dhaafin haddii diagnosiska loo soo helo oo lagu yidhaahdo spectrumka ku jira caawimaad degdega inaa la doonti caawimaadka ugu horeeyo ah speech therapist afka ilmaha communicationka loo barayo ama verbal ha noqdo ama non verbal ha noqdo taa hodan baa inoo sii sharaxi doonta oo iyadu si fiican usii kala sharaxi doonta ilmihii inuu social interactionkii u yeesho ilmihii inuu dee waxyaabihii ka dhinnaa skillsyo badanna waxaa jira naturally ciyaalkan spectrumka ku jira u imaada the fact that ay wax la hadlayaan the fact ay wax roo doonayaan ilmaha da'diisa inuu yara eego la yar ciyaalo waxyaabahaasoo dhan iyagu naturally ma yimaadaan laakiin kama dhigna ma baran karaan waa in la baro marka la baro aad iyo aad maskaxdoodu very very waa smart aad buu caqli badan yihiin waa inaa la yara baro oo toolsga la siiyo yaraan marka gacanta lagu qabtee la barana horey bay markaa noloshoodu wax badan iskaga bedeshaa wax badan bay iskaga bedeshaa hadhow tale xitaa wax follow upkii badnaayo needskii badnaayo dhan baa ka haraya ilmihii wuxuu noqonayaa autonom buu noqonayaa inuu isagii isdabaro inuu isagii wixii uu barto inuu isagii dharka keligii xidho waxyaabahaasoo dhan natural bay ku yimaadaan ciyaalkan spectrumka ku jirin ciyaalka spectrumka ku jira waa la baraa marka saa loo baro absolutely waxay kaga duwan yihiin ciyaalka kale ma jirto way la qabsanayaan si fiican bay la qabsanayaan just inaad yara la baro taasina waa early interventionka ay ku xidhan tahay ilmihii the more isagoo yara 2 sano 3 sano gacantuu ku jira lagu qabto maalintu 5 sano 6 sano gaadho iskoolka tegayo waa ilmaha kale waxba kagama duwan absolutely waxba kagama duwan caawimo dheeraad oo kale xitaa waxba kaagama baahanayaan levelna way kala leeyihiin level yar severe jira level waxaa jira kuwa la yidhaahdo Asperger oo communication xitaa hadduu ka raago laakiin very 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 smart level waxaa jira medium oo isku adigu xogaa caawimaad u baahanan hadhow tolana aan u baahnaan doonin iyo level waxaa jira severe sidoo levelku doonaha noqdo laakiin ilmaha gacanta marka lagu qabtay yaraan maca kaas severe kaasi hadhow tole isbedel weyn ba noloshiisa ku imanaya inkastoo ay kugu odhanayaan kuwani waa severe waa sidan laakiin toolsga u baahan yahay oo dhan marka gacanta lagaga rido maca waxaasoo dhan way yaraanayaan every symptoms aan iisoo sheego dhan way yaraanayaan noloshiisa rajo badan ba hadhow tole yeelanaya waalidkiina culays badan ayaa ka dulqaadmaya insha allah hadalku waa ku dheeraaday waxaan u dhiibi doonaa hodan kadib baynu insha allah halka dambaynu iskaga soo noqon doonaa maasha allah aad baad u mahadsantay ayaan runtii
waxa muhiim ah ayaan sheegtay dadkeenu badanaa cudur bay ku sheegaan ama xanuun waa marxalad maaha autism say ayaan soo sheegtay cudur iyo xanuun midna maaha wax la kala qaadana maaha waa marxalad uun runtii waxaa muhiim ah inaan ogaano dadka adduunka maanta caanka ah ama dad footballsha ku jira ama dad teknolojiyada hore ka gaadhay waxay u badan yihiin dadka ADHD-ga qaba ama autism-ka marka waa muhiim inaan ogaano just because of inuu ilmihii yaraa qabo autism inay noloshii istaagtay maaha micnaheedu waa su adduunka u arko unbaa ka duwan muxuu haytay su qofka kale u arkayo marka ani waxaan taataaban doonaa anisaan soo sheegay waddankii Sweden baan deganahay runtii wax badan bay ka bedeleen oo ay kusoo kordhiyeen hadday xagga communicationka tahay awalkooda waxaa jiray oo Sweden keliya jiray wax la dhaho PECS oo nin Maraykan ah haddaan xasuusto uu soo saaray oo picture exchange communication system ah oo sawiraanta lagula hadlo ciyaalka ah runtii iminka Sweden waxay kusoo kordhisay xataa iyagoo Soomaali ah ضعيف xoog leh mudugaysan daalan bababa sawirkaad arkaysaan awalkooda Swedish keliyu ahaa laakiin iminka luuqado badan baa lagu soo kordhiyey sida Soomaaliga sida Carabiga dadku horta waxay kala yihiin sawir baan halkan idinka tusi doonaa communicationka lagu sheegayaa waa muxuu haytay sawiraantan oo kale picska lagu sheegayaa ilmihii yacni wuxuu rabo suu kuugu sheegi karo oo kale sorry marka saan baan u malaynayaa sorry kanaan idin tusayaa horta communication oo waxa weeye wada hadalku ciyaalna way hadli karaan ciyaalna ma hadli karaan ciyaal waxa jira aad hay oo muxuu hayto wax walba sheegi karo wax walba odhan karo wuxuu rabo oo u baahan un haga yar nolosheen laga hago yacni ilmiyaan hadli karaynina waa kan oo kale pexka lagu sheegaya ee sawiraanta gidaarka lagu dejiyo oo iminka runtii Sweden ay sameeyeen isagoo widget go oo iPad-ka ilmaha yar ama computerka loogu shubi karo kaasoo بالمثل هدو الموت هبا إنه قرابة soo salaamo haduu rabo muxuu haytooy wax walba yani maanta qaraabadii baan soo salaamanaa baad ku qoraysaa meesha waa taabanaysaa yani wax walba wuxuu ku jiraa runtii anoo sharaxaya casharadan community integration show youtube-ka la dhaho channelka la dhaho marka waxa weeye qof walba sibuu u abbaara autism-kanu ilmihii bilmatalan wuxuu u baahan yahay maadaamuna hadli karaynin inuu waalidkii la hadlo waalidkii suu baahidiisa u tusaya cuntaan rabaa suu odhan karayaa marka waa inuu sawirkii cuntada soo qaadaa ama sawirkii uu rabay waa inuu saa u tusaa waalidkii stepka ugu horeysa yani sawiraantan communicationka pexka lagu sheegayaa kadib qaybta labaad ee ku xigtaa waxa weeye buug loo sameeyo I want this and that camal oo kale oo waalidkii ku dhawaaqay ilmihiina suu hadalkii u barto ka daba odhanayo laakiin marka ugu horeysa just inuu ku dhiibo umba sawirkaasi baahidiisa yani message-ka inuu gudbiyo oo dadiguna ka qaad banaanka inaad u baxdid baa maanta rabtaa oo ay kabaha soo xidho marka runtii uu ilmuhu dareenkiisa xataa inuu ka hadli karo maanta waan faraxsanahay waan xanaaqsanahay waan dhaxmoonayaa waan caraysanahay يعني إنه صور كده تسكر feeling كيسة درين كيسة محمود دريمية وحلاقة يابا المهم إنه وحتور طوريو وقيلينيو أديجنا تويدين سيدات والدات سلادي حما تكسي أم حاقل ده من محل سمي أنا تصورانتي لسه بودي كرتين أم آيباد كدورين كرتين يتوس صوران دور وان فرحسنا وان عريسنا هاي وان قاچونا يعني سيداس أوكالي المهم إنه درين كيسة يعني قوت المامي كرو يسوون هدي كرينين talabaadna waxa weeye ciyalku aan hadli kareynin baan weli ku jirnaa ka aan hadli kareynin wuxuu u baahan yahay hage step by step adigana si shaqo maxaa la dhahaa waqti uu kugu safe gareysmo waxaad laga yaabaa waali 5 ciyaal ama 4 ciyaal haysta inaad kuwii kala diyaarintoodii aad ku mashquulsantay kan kale ee baahida gaarka ali uu idinku dhexlumay uu idinku dhex dhintay yani marka ilmihii wuxuu u baahan yahay waqti cayiman markuu seexanayo schedule buu u baahan yahay kii lagu seexanayay schedulekii subaxii buu u baahan yahay kii banaanka markuu kusoo ciyaarayay u baahan yahay inaad la soo baxbaxdidun ku waayo oo tustidun
imika waqtiga waa xilligaasi waa xilligaad wax cunaysay inaad maanta dhan u tilmaamtidun suu isku digo uu soo eego wadad soo eeg yacni imika Sweden waxay sameeyeen kan oo digital ah maxaa la dhahaa samuurad saa u degsan oo ilaa ilmuhu markuu kaco ilaa intuu ka seexanayo iyadoo digital ay ugu qorantay marka habeenimidka gaadho way baktiyaysaa imika taasoo kale oo way damaysaa samuuradaasi that means ilmihii automatic wuxuu fahmayaa qolkiisa markay ugu taalla waa xilligii la seexanayay waayo ciyaalka qaar bay hurdadu dhigtaa oo laysla ashaahataa laysla rafaadaa maanta dhan soo baxbaxaya ku noqo hurdadii ku celi seexo oon fahansanayno moodaya maalin cad inay tahay iyadoo habeen ay tahay marka maadaama uu hadli karaynin isagiina uuna odhanayn ma raba deenaan seexdaa ma aan nu odhanayn waqtigii la seexanayaybaa digital bay runtii imika ka dhigeen waxyaabahan imika pex kan sawidaantan gidaarada awalkii hore madbaxaad ku dejisanaysaa musqushaad ku dejisanaysaa meel walba imika kanoo kale wuxuu ku fiican yahay qofka hadli karaya ilmuhu markuu hadli karayo wuu u baahan yahay hage buug baad u samaynaysaa bilmatalan ka kooban kan markuu bijaamaadkiisii xidho bilmatalan halkan uu karoo saarayaa halkan haddana musqushii markuu galo gacmihii markuu dhaqo isaga istiraaya marka kan waa ilmo bilmatalan waxaa laga yaabaa 15 jir 16 jir inuu wax dira uun buu baahan yahay yani wuxuu baahay wax bushkareeya waxaa laga yaabaa maanta dhan 2 saacadood inuu halkaa kuu fadhiyo adiga inaad dibsatid oo tira maxaa qabanaysaa wax xilligii la seexanayay maxaad u seexan laaday just because of inuu hadlayo micnaheedu ma in automatic ugu imanayso wuxuu qaban lahaa marka wuxuu u baahan yahay wax yaro haga ah inuu halkan uu cross saaro mad walba uu meeshan xariiqo musqushiibuu galay bijaamaadkii wuxuu dhaylkihii buu cedayay laakiin ilmiyaan hadli kalaynin kan baa u fiican muxuu haytoy ama widget googa ay ku ridaan ay ugu ridaan iPadka ay ugu shubaan kan wuxuu ku fiican yahay qofkaan hadli karaynin kan oo kale musqushaad ku dejisatid ilmihii musqusha markuu aado okay wuu iska taagnaanayaa baa laga yaabaa 10 minute muxuu ka qabanaya laakiin sawirkan markuu arkayo inaad tiraahdo ka cadaygeenu soo qaada maxaa ku xiga sawirkan un buu raacaya waa camal qof dhagoolo oo kale maadaama una hadli karaynin way yaqaanaan badana ciyaalka badana autismka qaba waxaa la dhahaa mar walba diagnose kala u raacsan oo muxuu haytoy kale ama Asperger ha ahaado ama diagnose kale ha ahaado marka runtii kan sawidaantan waxay ku fiican yihiin ama shaduulkani qofkii dibsanaya inuu sawidaantan meel walba ku dejisto musqushii kijadii cuntadii fadhigii waxay ku fiican tahay isagoo Sweden waxa jira iPadka loogu shubo imika xataa waalid baa runtii sameeyey macallimiinta iskuulka iyo waalidka buug yar baa jira maanta hebel wuxuu sameeyey sidaa cuntadaasoo cunay buuggaas yaroo waalidka iyo macallimiinta u kala dhexaysa waalid gabadha Swedisha beridooda marka samayso wax la dhaho picture of my life in logni wax lagu galaa lagu siinayaa waa waalidkii buuggii ku qori jiray macallimiintii ina automatic ilmihii sawir dhag imika hebel idinku soo socday iskuulkii cuntadaas qureecdaas soo cunay dharkaas boodsada ugu soo riday everything's all right baba waxaas ba yani loogu qoraya waa wax walba digitalisering ba imika adduunka wuxuu horumar ku gaaray digital ba laga dhigay kan oo kale wuxuu ku fiican yahay inuu ilmihii barto waa markaygii waa markaagii muxuu haytoy marka ciyaarta la ciyaarsiinayo kale ilmihii wuxuu u baahan yahay sida ciyaalka kala oo dhan inuu barto markan waa markaagii markan waa markaygii u kaadi xilligan lama gaadhin anaga badanaa Sweden waxa la siiyaa wax yaroo ku habilitating la dhaho oo meel sida dhakhaatiirta oo kale meel xarun loogu talagalay dadka baahida gaarka ah la qaba teamstog ama timer waa saacad ilmihii maadaama activities ku soo celcelinay 20 jeer same activities waxa laga yaabaa hooyo ama aabaad dhibsanayso leeday 20 minute ama saacad uu maanta dhan ku soo celcelinaya ciyaarta waa interesting kiisa waa si aad yani u fahantid waayo ciyaartan ugu soo celcelinaya ama waxa laga yaabaa meel ku degdegsantay waa inaad saacadaas soo qaadaa oo tiraa after 10 minutes markay bahashan beep tiraahdo activities ku dhamaaday we have to go next activities ama meeshii u baxaynay laakiin haddii ilmihii isagoo activities ku faraxsanaa ku dhex jira for nowhere dab aad siiso tiraa we have to go waa inaan baxno soo baba stress iyo werwer mar walba ciyaalka baahida gaarka ale waxay jecelayn ogaadeen what's next maxaa dhici doona maxaa activitieskan ku xiga imika kale waan cuntayna next maxaa yani si ay problemka ama maanta in su'aalaha kugu soo labaan noqonaya 20 jeer isweydiin kugu soo celinayo
wuxuu ku fiican yahay shaduulkani sidaa step by step soo markuu kaco ilaa markuu seexanayo haddii ilaahayna gaarsiiyo ama qof walba si yacni adigana hadalkaa ku dhibayo kugu soo celcelinaya ilmi wuxuu doonaya waa ilmaan hadli karaynin in ogaado halka u socdo halka waxaana ka socdaan maxaad qaban doontaan waxyaabahaasi marka communicationka sawirkan textka ama picture exchange communication systemkan wuxuu ku fiican yahay ama widgetgooga ipadka loogu shubayo waa wax aan ku jirin ma jiro hadal aan ku jirin ma jiro maanta dharmayr baan leenahay waad meesha kusoo qodaysaa dharkii mashiinkii wixii dhan baa soo baxaya dharkii mashiinkii waqtigii aad maylayseen saacadii yacni wixii waad youtube-kaad ka eegi kartaan saan idiin sheegay anoo aad u sharaxaya oo taataabanaya meelaha aan sheegayo kan wuxuu ku fiican yahay inaad iska haysataan mar walba guriga oo kale waa markuu levelkii uu soo dhaafay ahaa uuna hadli karaynin inuu sawirkan ku tusayay banaankaan rabaa inaan u baxo aha banaankaad doonaysaa okay waa ka ku xiga waxa weeye I want halka waxaan rabaa sawirkan uu qaadayaa ma hamburger baad rabtaa ma pizza rabtaa yacni gudaha waxa ku jira ay cunto kale yacni halkan imika Coca-Cola yacni waxyaabaha ilmihii saas u soo qaadaya halkii wuxuu ku dhijinaya I want ay ku qornayd waxaasaan rabaa waa markuu ka gudbo kan bilaa hadalka ayuu kuu dhiibayay istebyo badan buu leeyahay marba dee mar walba wax lagu training garaynayo mar walba aad mid kasii gudbaysaan marka dadkii Sweden degan waxay ka heli karaan waxaan sawiraantan oo dhan ama communicationka lagula hadla hadday ipadka laydinku shubayo haddii timeka digitalka imika ay sameeyeen guriga laydin dhigayo habilitating oo la dhaho habilitatingkaas ilmaha in laga register gareeyo ilmo wala autism qabaa Sweden xataa waxay ku fiican tahay hooyadii rabta in muxuu hayto ilmaha iyo weekendiga laga saara ama aabihii raba oo activities loo sameeyo maadaama baahi gaara lee qabo degmada bixisa social service-ka bixiya kuwa LSS han leegare la dhaho ilmaha yar ee baahida gaarka ale ku shaqale ayaa badanaa muxuu haytaa ama guriga lagugu imanayaa oo kuwa kalaad waqtiga si lagu oranayaa oo geli annaguna kana kaa maaweynina kaa jeedinayna haddii aanad guriga rabina lagugu yimaadana banaanka lagaaga saaray ama dabaal baa lagu geynayaa ama sinimo what kind of activities kay tahayba badanaa caawitaankana waxa bixiya muxuu haytaa kuwa social service-ka ayaa loogu talagalay ciyaalka baahida gaarka ale qaba wixii sawiraan imikaan halkaa idinka tusay hadday tahay computerka laydinku shubayo hadday tahay waraaqahayna kala soo baxdaan oo af Soomaaliya qofkii Sweden degan way la soo xiriiri karaa inboxka Facebook hodani tosh bay ugu qoran ama meesheedan ba message waad kusoo diri kartaan halkaad kala xiriireysaan Sweden iyo meelaha macluumaadada ku jiraan ama caawitaan aad ka heli kartaan exactly waan idin tilmaami karaa haddii ilaahayna gaarsiiyo marka runtii ciyaaladu way kala duwan yihiin sida ayaanay soo sheegtay qaarkood iftiinkaa dhibaya qaarkood hadalka dheer baa dhibaya waxaana muhiima in la ogaado ciyaalkan ciyaalka aqli badani wallaahi alcadiim qaarkood iyagoon hadli karaynin ayadana saa computerkii baa iga damay oy maxaan sameeyaa wuu soo cararaya bal aduu kaale keen basuu computerkii kugu sameeyey meel uu iska taabane uu hagaajiyaba computerkii marka maskax waxa ku jirta aan caadi ahayn hadday waqti fiican la geliyo oo muxuu haytoy training badan la siiyo hadday xagga hadalka tahay haddii waxa la yidhi waxaan loo soo rafaadin oo loo soo silcin easy laguma helo marka waxa loo baahan yahay ilmihii waqti la geliyo wuxuu xaq u lahaa loo soo dhiciyo muxuu tahay meelaha caawitaan adduun horumar maray baynu degannahay dad muslimaan oo islaam sheeganayna laakiin haddana inaan isku cayno hiblaayo waxay haysataa ilmo muxuu haytay sidaasa cudurna maaha xanuunna maaha ciyaalka maskax badan waxay la micnayiin ciyaalka kale marka imka waxaan kusoo dhaweynayaa muuna oo inala wadaagi doonta iyaduna muxuu haytay experiencekeeda haddii ilaahayna gaarsiiyo aad baad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وذا في عنتهين واد مهاتفانتهين ماشي يقيرتين والله هو وحان فوبيا هدر قصة سعودتي 7 سنة فانميل سو فوبيا إن شاء الله مرعي ومنى community worker بانهاي and also sorry كلمة English مش وان استعمالية لكن إن شاء الله وحان تجابني إن أنا صومالي بهذلو
inankayga horta qisadu waxay ka bilaabaysaa uurka okay marka curadkayga buu ahaa markaan uurkiisa qaaday waxaa lagu sheegay xanuun la yiraahdo hyperpremesis gravidarum xanuunka dad yar buu ku dhacaa wuxuu yahay yani dadka maaragtay uurkooda ku xanuunsado xoog oo dhakhtarka la jiifiyo xanuunka markuu igu dhacay miisaankiisa muu korinin uurkiisa waxaan ku qaaday 70 kilo waxaan ku dhalayna 60 kilo so waxaa iga dhacay 11 kilo baa iga dhacay isagu wuxuu ahaa wax la yiraahdo high risk pregnancy lano koritaankiisi uu yaraa 5 jeer baa dhakhtarka la ijiifiyey biyaa laygu shubay waan cuni kari waayey I couldn't eat anything maalintii waxaan xunqaaciyey 30 jeer ugu yaraan ilaa aan nearly inaan yani suuxidii in yar baa iga haray dan dhakhtarkan taga oo biyo laygu shuba iyo vitamino iyo waxaa laygu shuba so sheekadii caankaasay ku bilowday from pregnancy ilaa markaan dhaliyey waxaan ku dhalay miisaankiisa uu yaraa emergency c-section baan ku dhalay laano wadnihiisii baa hoos u degiyey quite a lot so riski badan buu ku jiray ba alxamdulillah waan dhalay so inankaygii before inankayga waxaan ka sheekeynayaa now my sister walaashay cunuggeeda walaashay inan bay dhashay curudkeedii markuu ahaa 20 months 17 18 months meesha cunug waxba mu qabin he was fine caadi buu ahaa kelmado buu haystay wuu ku fiirinayay maan islahayn cunugu waxba meeshaas ka siya and then dabdac buu keenay waxaa la yiraahdaa regression yani cunugii wuu isbedel buu keenay isbedelkii aan ku aragno wuxuu noqotay qaylo waxay noqotay madaxiisa inuu gidaarka dhulka ku dhufto waxay noqotay habeenka ma seexanin 100 jeer buu kaciyaa I mean 3-4 time buu kaciyaa cuntadiisii si xun bay noqotay calooshiisii way taagneed maaragtay ba aniga walaashii waxaan ku oran jiray walaalay waxba cunuga hayaa dabcan as reer Soomaaliya ma jiraan denial baa lagu jiray hooyaday baan u tagay wallahi I remember how many time baan u tagay cunug waxbaa haya cunug meel ka haysata maxaa haya aniga waan gartay calaamadihii waan gartay laano before disability waan la soo shaqeeyay فهادو waxay dhacday inaa maaragtay 3 sano markuu gaaray assessmentkii loo bilaaway lagu yiraahdo cunugu is autistic and ma salaama dhakhtarka wax kale kuma qabanayaan ilaa waxaa la okay labelkii baa la siinayaa cunugu waa autism speech and language therapy suga okay waqtiga ani cunugayga wuxuu ahaa ilaa sanadii wax ku gaaray waxaan u soo guuray Holland reer English baan Holland baan soo guuray walaalkii uurkiisaan qaaday inankayga aniga waxaan bilaaway inaan research galo waxaan u galay inanka walaashay aawadiis marka researchkii aan bilaaway waxaan idhaahday cunugu ma seexanayo calooshiisi baa taagan sensory issue buu haystaa yani wax ma taaban karo qoyaan wuu qaylinayaa wuxuu haystaa a lot of stimming baa la yiraahdaa qaylo badan orodkii uu ordiyey wallahi yani as waan arkay walaashay dhibta ku jirta laano cunugu hadduu haadi yahay iska degan waa wax kale laakiin meesha waxaa yaala yani dhib baa taala cunugii ma seexanayo hooyadii 100 jeer bay kicisaa ma cuniyo saxaradiisii caloosha ku degan daawaa la siiyaa madaxiisii wasdiliyaa researchka markaan bilaaway waxaan cadaano group baan galay biomedical group baan galay weli maan fahmin bacdeen waxaan u jeeday cunugay aniga wuxuu ahaa waqtiga 15 months 16 months buu galay already markuu ahaa 12 bilood waan ka shaksanaa laano bas ani maan garanin I was the first time mom maan garanin calaamado badan waan ku arkay laakiin waan isdhaga tiray waxaan okay ka weynaanaya it's okay so markuu gaaray 18 months waan u soo fariistay and I said okay waa magaciisa markaan u yeero ma maqliyo eye contact
in yar buu haystay yani in yar عنك ishayda markuu i fiirin way dhibi jirtay cuntadiisii weligii wax vegetable la yiraahdo iyo hilib weligii ma cunin waan u sameeyaa waa laygu tufaa ma taaban karo wax qoyaan haddaan taabsiiyo samunad oo kale caynkaas isku jiray he couldn't touch it loud noises haddaan huufurka shido ama caynkaas u samayn jiray dhagihiis qaban jiray stimming wuu haystay he used to spinning wax badan oo maaragtay wareegsan jiray dabadda maan u kaxayn jirin li'anno meel haddaan dukaan tagno meesha waa lasoo wada daadinayaa you have to restrain him ama push chairkiisa ku xirtid ama yani uu kaa cararaya yeah so waqtiga waxaan bilaaway 2 sano markuu gaaray calaamadihina waan ku arkay fa yani waxaan bilaaway waxaan bartay wax la yiraahdo detox li'anno researchkan ka sameeyay إنه تلاليه possibly dib way u keentay pregnancy laftigii dib way u keentay miisaankiisa uu yar yahay waxba ma cuniyo caano iyo khubus buu ku noolaa iyo laxoox inuu wax qalalan buu ku noolaa fa you know in my mind cunugan ma koriyo oo calaamadaas dhan buu leeyahay dee why nurserygii buu galay nurserygii way ka dacwoodeen laanna cunugu ma fadhiisan ciyaalka ma la ciyaariyo communication badan ma leh speech delay buu haystay so iyagu laftigood waxaa la ii diray autism assessments 2 jeer aniga waqtiga waxaan bilaaway inaan barto different ways waxay noqotay inaan detox u sameeyo detox waxay tahay inaan jirkiisa ka nadiifiyo sumta talaalaha waxay ku jiraan wax la yiraahdo heavy metals sida aluminum iyo mercury iyo lead waxaa jira ciyaal ma dhaqi karaan oo jirkooda bay ku jirtaa waxaa la yiraahdaa methylation waxay tahay jirku inuu isnadiifiyo fa ciyaal talaalku way qaataan uma dhibto and they're fine waxaa jira ciyaal way dhibtaa yeah oo markay dhibtana waxay u keentaa caabuq madaxii brain inflammation madaxii baabararay iyo caloosha anyway fa detox markaan sameeyay caanihii dairy dhan waan ka jaray caanihii markaan ka jaray cunugii uu soo degay he started calming down بعدين waxaan bartay inaan maaragtay supplements siiyo you know inuu leeno cunug waxba ma cuniyo vitamino iyo minerals badan baa ka maqan ma garatay so taa kullu keligii baan sameeyay group only waxaan ku jiray research you know studies baan akhrinayay buugag baan akhrinayay waalidiin ajaanib badan baa la hadlayay groupidoosan ku jiray so research waxaan ku jiray sanad baan ku jiray research kan anyway cunugaygii he started improving walaashii cunugeedan as well way bilowday iyadana waxaan u sheegay waxaa ka bedel detox u samee diet ka samee saliidaha u bilow lana madaxa you know bani aadamka 50% waa fat cunugina hadduu wax qalal wada cuniyo fatkii baa ka yaraanaya maskaxda ma heliyo supplement bay u bilowday alxamdulillah rabbil caalamiin uu soo fiicnaaday بعدين waxaan sameeyay research waan arkay asxaabtayda you know Halima has a child on the spectrum ciyaalkii la dhashay cunugayga inamadii also were autistic meesha hadho yaab waan yaabay maxaa dhacay ciyaalkii maxaa ku dhacay my best friend gabadh aan Dublin isnaqaano gabadh aan Dubai isnaqaano بعدين waxaan sameeyay hablihii baan isu keenay group WhatsApp baan sameeyay dadkii baan isu keenay groupkii uu weynaaday hadda 2 sano iyo barb soconiyay uu weynaaday waalidiin badan baa soo galay فمعلومات بدن بان ماركتي كلا وداقني هذا وحن هذا وحن فلو قرينا biomedical approach biomedical وحي آمن سنين ما ها normal mainstream بخاطر تعادق أكون يقوم بيلي ما آمن سنة أنا أقول وحن آمن سنة عيال كان إنه تشركوا ذو وحن وصنيان أوكي وحي كحن وصنيان وحي ترى عيال طلال كيبا أوجستي وحي ترى عيال deficiency بدن markaa la baaray waxaan tagnay ciyaal baan u dirnay biomedical clinics waxa baaritaankii markaa loo sameeyay saxaradii baa laga baaray dhiig baa laga qaaday timaha la baaray waxa ciyaal afku had one doctor in America wuxuu garaaday inanka talaalkii baa u geeyay cunug kalena waxaa lagu yiraahday waxa uu geystay deficiency inno zinc magnesium vitamino badan iyo minerals badan cunug ma haysto uu ka maqan yahay okay waxa jira cunug ma seexanayo because wuxuu haystaa wax la yiraahdo yeast overgrowth calooshiisa bacteria ku jirta
waxaa jira cunug kale parasites ku jirta dirxi waxaa jira cunug kale allergy badan haysto food allergy waxaa jira kuwa calooshooda only 10% baa shaqaynaysa yeah so from the biomedical approach ciyaalkan jirkoodii baa xanuunsanaya yeah qof noo caafimaadi 100% ma jirto ilaahay subxaana watacaala usaga caafimaadkaas bixiya laakiin ciyaalkii are improving way soo fiicnaanayaan yani cunug haddaanu saxan hadda uu saxday waxaan haysanaa groupka ciyaal hadlay they were non-verbal now were verbal waxaan haysanaa ciyaal oo maaragtay shaarici wuf maaturan orod ku jira orod way soo degeen leano calooshoodii baa daawo la siiyey oo way soo fiicnaadeen so cunug kasta is different meesha laga hayo waa different cunugayga aniga waxaan geeyay biomedical in Holland dhakhtarad baa aragtay daawo baa loo soo qalay iyo different multivitamins iyo product baa loo soo qoray markuu qaatay cuntadiisii baa fiicnaatay yani he started eating vegetable at the age of 3 inankayga aniga calaamadihii uu haystay before weli some wuu haystaa diagnosis ma la siinin laakiin 2 assessment baa loo diray oo he was borderline yani may garanaynin ma yahay maaha leano waqtigii ay assessmentkii u sameeyeen already aniga waxaan u bilaaway all the intervention maaragtay dietkii ka bedel supplementkii si detox u samee environmentkii ka bedel xataa environmentka biyahaan siino ciyaalka waxaa ku jira fluoride jirka waxaan ugu dhaqno chemicalska waa inaan laga daayaa taa waxa yirahdo total load theory yani chemicalka waa inaad ka wada saarta cunuga environmentkiisa aniga unsi xataa guriga ma shido yeah waxaan shidaa matalan essential oils jirkiisa wax chemical dhan ma mari maantana waan saaraa you have to take them out every single day even if it's raining you have to take out inankayga aawadii bike baan u bartay so every day wareeg baan ku jirnaa cunto certain cunto xasaasiyadoo ku leeyahay ma siin kari so speech and language therapy wuu tegay waa meel kasta waa inaad ka shaqaysaa ma garatay waa intervention laakiin anagu we believe more haddaad garatid cunuga xagaa laga haya leano markaad aragtid autism laftigii ciyaalkii they have medical issues you know they're not eating they not either they have constipation ama waxay haystaan extreme diarrhea what else you know the stimming the sensory you know cuntada certain cunto ma cuni karaan why because caloosha ku xanuunaysa hyperactivity badan yani inankayga he had extreme hyperactivity sometime waan qaban jiray because I was so scared inuu wadnaha istaago it was too much something qolkan xiri jiray yani I sit with him in the room ceenkaas ahaa orod you know ma waxa cunsa cunuga maxaa hay why is he like that so alxamdulillah rabbil alamin groupkii way wanaadeen waxaan haysanaa hadda also WhatsApp group dadka Englishka ku hadla waxaan haysanaa Telegram group dadka Soomaaliga ku hadla all together waxaan haysanaa nearly 700 members groupka waxaa ku jira mataano badan waxaa ku jira walaalo waxaa ku jira yani hadda reerihii walaalo waxaa la haystaa 2 iyo 3 iyo 4 baa la haystaa not 1 or 2 this is a big problem it's not small it's huge and it's getting worse and haddana waxba laga qaban oo wacyigelin ama baaritaan ani waxaan rabaa Somali medicals and scientists inay isu imaadaan aan irano maxaa dhacay leano this is not genetic maaha waxaa jira predispose yani matalan waalidka jiinkiisa hadduu daciif yahay imay trigger it laakiin waxaa jira yani factoro badan aa la isu imaado to cause this لكن ما هو يعني هذا الصومالي مركان أنا مو way below I have ladies from Hargeisa ومقديشو وقال كعيو and ما حد داعي سؤال مش ترى 8 سنة كهر عين كمية هين ما حد داعي تاسان ربا إن ضدك الصومالي ذا أنت مارك عيالك قريها لقو قرن لها وإن حضرنا وحلا قرنيهم معها we have to talk لأنه واحد شريك كرتك قبر كليك يعني معلومات more information هيستأكوا عاوين كرتو. So this is the community that I want people to bring together, inshallah. Thank you.
ما شاء الله مونا aad baad umahadsan tahay runtii waan isku wada baahanay adduunka meel walba ka joognaba kolley maantaba waxay isu keentay waxa weeye dib aynu aragnay communitygeena inay ka dhex jirto meeshaan doonna baan ku noolaano marxaladan autismku way ku soo badatay dadkeena weliba especially Europe degan Scandinavian-ka oo kale Sweden aad buu ugu batay UK way iyagana way jirtaa marka inaan xal u raadino inaan baaritaan samayno inaan ogaano ciladu halkii ka jirto aad bay u fiican tahay ayaan kolley waxay noo haray 10 minute waxaan u malaynayaa inaad rabtid inaad wax ku darsatid soo dhawow aad baad mahadsan tahay hodan muna aad baad u mahadsan tahay wallahi waxyaabo badan oo aniga laftarkayga maanta aan ku leeyahay hooyo waxaan ahay gabar yar oo autismka spectrumka ku jirta inkastoo diagnosis official aanay ii sameyn aan la lahay waxyaabo badan oo maanta aanan garanayn muna nala wadaagtay aad baad u mahadsan tahay saa aad sheegtayna waa la isku wada baahan yahay waa ina dhinac walbana laga eegaa difference-ka aan ku sheegay waxyaabaha aanan u ogeyna waxa weeyaan saan kuu sheegay hablihii ilmadu aad buu kala duwan yihiin imika sinanska badan ee jir ahaan ilmihii uu xanuunsanayo anigu kumaan arag gabadheeda kuma arag waa saansiyo yaryar oo hoos maraya marka aniga messageka aan u waday waalidka waxa weeyaan aad iyo aad inaad ugu foojignaatiin ilmihiina aad u fiirsatiin oo eegtiin as soon as aad wax ka shakidinna ha khabaysan hoos ha guriga ha ka xidhan you need to go get help meesha haddaad nasiib leedahood ku nooshahay dhulalkani caawimaad badan baad helaysaa nooc kastaba ha ahaato sidaa ay communication ka tahay sidaa caafimaadka jirka ay muna noo sharaxday sidaa ay dhinaca walba waa ka helaysaa caawimaad marka hooyadaa macalinka ugu horeysaa intaanad nursery gerin hooyadu dareen bay leedahay ilmuhu markuu dhowr bilood iyo sanad yahay waa dareemaysaa there is something wrong inay waxyaabaha qaarkood yara qaldan yihiin the more aad halka hore aad wax ka qabatidna the more ilmihii noloshiisa ay saameyn weyn ku yeelanayso communicationka saa ay sheegtay hodan anigu waxaan ku bilownay completely non-verbal by head waxaan ku bilownay pixkaasi anu markaan dareemay dhaktaradeedu way igala soo horjeedsatay waxay ku tiri absolutely what speech delay way eye contact ba leedahay way kula ciyaaraysaa way ku soo jeedsanaysaa wax dhiboo kale ma arko anigu laakiin laba horaasii lahaa waan ogahay there is something wrong way igu diiday so private waxaan u tegay evaluation psychologist way igu tiri markiiba waxay igu tiri anigu habo inan tahay waan arkayaa waanan arkayaana inay waxyaabo badan khabaysanayso but signs yar baan ku arkayaa so wax alle dhibaato ay u keenayso male haddaad maanta dariiqi loo mari lahaa caawimaadka haddaad u martid xitaa haddayna ku jirinna hadhow tole wuxun bayad u taraysaa obviously imika speech delay bay leedahay wallahi sanad maanta kama soo wareegin sanad waayo last September bay ahayd waxaa kasoo wareegtay 9 bilood the pixkaasaan ku bilaabnay hodan aad sheegaysid saasoo kale I want waxyaabahaasoo kale waayo marka hore ilmuhu gacantu kaa tusayay moogta gacantay gu tusay markii dambe pixkay ku dhiibtay saa aad sheegtay iPad-kana loogu wareejiyey everything iPad-ki they are very smart 2 seconds bay ka qaadatay iPad-ki inay fahanto markii dambena way ka gudbayaan oo imika afkeeda ku sheegtay iPad-ka iska riixda afkeeda ku sheegtay waxa ay rabto calaamo badan concentrationkeygii focuskeedii baa batay waxay bilowday awal may fadhiisan jirin speech therapist marka loo geeyo miiska dishiisa maanta ilaa 15 mir 20 mir wala fadhin kartaa activities bala samayn kartaa change badan markuu ilmihii isbedelka saa ay sheegtay muna ma qaadi kartidun hodan iyo muna qof sheegay ilmihii hadduu wax jecel yahay ka wada kama qaadi kartidun because ciyaalkaas way ku adag tahay inaa markii waxba saa uga soo qaadid waa inaad la sii hor hadashaa hadda maanta waxaasoo dhan way kasoo yaraadeen because early interventionkaasi waxyaabaha badan symptomskaasi way ka yaraanayaan caawimaadka badan ay u baahnaanayaan baa ka yaraanayaan marka aniga waalidka aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waan ogahay community waxaan ka dhalanay waxay saa waalidkuna ay hoos ugu khabaysanayaan community farta laysku fiiqiyo xumaanta farta layskuguma fiiqo laakiin hadda waxun iyagoo arkay farta iskugu fiiqi maayaan laakiin wanaaga maanta saasa qofkii baa already isagii culays dareemaya waalid ahaan oon caawimaad garanin halkii gacanta loo fidin lahaa caawimaadkii baa lagu caayayaa sidii wax caay ay tahay waa qadar ilaahay keenay
absolutely xanuun maaha haddaad nasiib leedaho dhulkan aad ku nooshahay aad caawimaad badan haysatid maanta jaaniskaynu haysano anii muna ma haystaan waalidada carruurtaa ku haystee Soomaaliya jooga ma haystaan jaaniskaasi ma haystaan caawimaadkaas oo dhan welibana ay u dheer tahay stigma ay welibana ay u dheer tahay intimidation ilmihii aanu dibadda u soo bixi karin waalidkii aanu dibadda u soo bixi karin waxa calool xumo maanta inagoo dhulkan ku nool still stigmadaasi u jirto intimidationkaasi u jiro meelaha markii Soomaalidu isku yimaadaan hooyooyinkaasi way cabsoodaan ilmahooga ma keenaan ama iyagii gurigii la fadhiyaan so as a community Soomaalihan inaan iskugu noqono nidhaahno maxay naga qaldan maxaa maanta markii qadartani timaado aynu gacmaha intaynu isqabsan lahayn oon wixii qofka aynu ku caawin karin weynayn because carruurtani waa futurekeeni waa dadkii maanta community-gi berito la noqonaya they are very very smart wax alle wax ka dhiman male caawimaadkaas unba u baahan yihiin jirka imika intaa ay nagu soo kordhisay munamaan garanayn intaasoo dhan and speech therapists behavior and therapists waxaa oo dhan marka la isku geeyo dhinac kasta laga buuxiyo waa skills aanay markii hore iyagu naturally ugu iminin ayay wada leeyihiin wax alle waxay carruurta kale kaga duwan yihiin male stigmana inaan iska ilaalino ilaahay ka cabsano ilaahayba muslimna waynu sheeganaa laakiin waxyaabaha aynu sameynayno oo dhan diinteennii muslimnimadeennana aad bay uga duwan tahay marka insha Allah nu waalidka intaasan ku bogaadinaya aabiyo hooyaba inay please ilmihii markii sida u dareemaan sanad haddii xitaa uu yahay ay caawimaad doontaan ay meel kasta uga dhacaan fight for your kids fight for your rights ilmahaaga iyo adiga inaad u dadaashid weeyaan intaasan kaga baxaya masha Allah ayaan aad baad u mahadsan tahay runtiisaanu hore u soo sheegnay annaga meeshan umaanu soo fadhiisan inaanu khabiirinahay ama professoraan nahay just waxaanu aragnay waxaan la soo derisnay waxaanu la noolnahay unbaanu idinla qaybsanaynaa si ciyaalka kale ama waalidka aan ogeyn waxay xaqii xaquuq u leeyihin ciyaalkooga baahida gaarka ale qaba ama aan aaminsanaynba ilmahan inuu caawitaan heli karo ama uu noqon karo sida ciyaalka kale haddii waqti la geliyo oo meesha la geeyo waxyaabaan soo sheegnoo dhan laga caawiyo unbaan anagu doonanaa inaan idinla qaybsano qofkii doonaya macluumaad ku saabsan maanta subjectigan kasoo hadalnay ama maadada autismka ku saabsan ayaan waad la soo xiriiri kartaan ani waad ila soo xiriiri kartaan muuna waad la soo xiriiri kartaan muuna waxay ku jirtaa say idiin soo sheegtay WhatsApp group intaasoo waalidiin baahida ciyaalka haysta baahida gaarka ale qabta oo Somali Autism Community Group la dhaho ani waxaan ku jiraa group kale oo isagana ama organization Sweden ka dhisan oo waalidiin iyaguba haysta ciyaalka baahida gaarka ale qabta oo la dhaho Somaliska Autism Asparian Organization oo Stockholm ka dhisan marka wixii ku saabsan ama aad isleedihiin waxay soo sharaxeen hadday communication ka tahay hadday calaamadaha tahay hadday dhakhaatiirta tahay wixii ku saabsan autismka maanta aan ka hadalnay ama su'aal ama commenti ama muxuu haytoy inaad guruubadan kusoo biirtaan ama aad muxuu haytay la kulantaan digital ahaan waalidiinta idinla qaba arrimahan waan idin soo dhaweynaynaa muunan siinayaa labada minde ugu dambeeya muuna maxaad dadkeena u sheegaysaa messagekaaga ugu dambeeya maxay ku soo xidhaysaa ku gabagabeynaysaa autism haddeer ADHD autism iyo Asperger's haddeer maaha just keligan community-gani laakiin sida baaritaan marka laga arkay Sweden iyo Minnesota waan ugu badannahay okay laakiin haddeer waa wax caalamkoo dhan ku batay carabta ku badatay cadaanka way ku badatay madowga way ku badatay inuu dadka afrikaanka kale ummadahoo dhan bay ku badatay so wax la qariyo maaha waa inaan taa ka boodnaa okay maanta waxay noqonaysaa maanta ani inankayga walaashii cunugeeda markaan arkay iyo asxaabteedii oo dhan markaan arkay everybody inuu haysto cunug on the spectrum dee su-aasha waxay noqonaysaa kaalay aanu isu manno aan tashano maxaa dhacay let's help each other laakiin mid kasta haddii qarsan lahayd walaalo keligan baa meesha ooyi lahayn aniga wallahi alcadiim way adkeed marxaladii aan soo maray way adkeed it was very difficult already anxiety badan bay haystay walwal badan bay haystay laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin ninkayga xoog way caawiyay reerkiisana xoog bay caawiyeen famaanta waxaan ka fakariyaa gabadha
oo haysata 2 iyo 3 oo ninkii ka tagay ama caawitaan ma haysato so waa inaan maanta garab istaagnaa because ciyaalkan waa kuwii dalkii mustaqbalkana dhisi lahaa so waa inaan wax ka qabanaa insha Allah maasha Allah aad iyo aad gacmooda jir baa wax lagu qabtaa baa la dhahay taas waxay ahayd muxuu haytay maanta barnaamijkeega autism ku saabsan dhammaantiin aad baad umahadsantihiin noogu soo qora meesha commentiga waxyaabaad doonaysaan diagnosada ama wixii aanu isleenahay dadku way isweydiinayaan ama waad uga faa'iideyn kartaan haddaan dhakhaatiir kusoo casuumi karna ama haddaad doonaysaan subjecti special inaan ka hadalno ama waxaad nagu tuhunsantihiin meesha pagekayga noogu soo qora meel walooda adduunka ka joogtaan khayr baan idiin rajaynaynaa aad baad umahadsantihiin dhammaantiin dadkii nala socday waxaan idiin rajaynaynaa inaad maanta wax naga faa'iideen informationka maanta aan idinla qaybsanay walaalkiina dhibaataysan amaad ogtihiin inuu u baahan yahay macluumaadkan amaad arkaysaan ilmihiisa yar inuu calaamadaha leeyahay waa inaad sii caawisaan ud la wadaagtaan aad baad umahadsantihiin muuna iyo ayaan aad baan idin salaamaya habeen wanaagsan dhammaantiin waa inooya mar kaliyo maraan hawada kale ku xiriiri doona haddii ilaahay na gaarsiiyo peace and love